صبح كل صبح وجه الدنيا كل صبح وانت اللي تتكرح ونفتوها عاك بوينت وكل منا يبدل كره طبل شيء ويبدل له كل بالقعه war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in ciidanka ammaanku ay xidhan 50 dhalinyaro ah kuwaas oo ku labisan calanka Soomaaliya. qoraalkan ka soo baxay ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul ka mid soo gaaray xafiiska warqabadka ee Bulsho TV ayaa waxa uu dhignaa sidan: ciidanka booliska gobolka Awdal waxay xabsiga u taxaabeen ku dhawaad 50 dhalinyaro ah kuwaas oo ku labisnaa calanka dawladda Soomaaliya. dhalinyaradan ayaa qaarkood ku labisnaayeen calanka halka kuwa kalena muuqaalo iyo sawirro ay ku galayeen meel ka baxsan magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal. qoraalka sii socda waxa uu leeyahay dhalinyaradan ayaa hadda ku kala xidhan xabsiyada dalka waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo xeer ilaalinta si ay uga gutaan waajibaadkooda ayaa lagu sheegay qoraalka ka soo baxay ciidamada booliska Soomaaliland ee laga hadlayay dhalinyarada kontonka ah ee ku labisnaa calanka Soomaaliya oo lagu xiray magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal. qoraalka gabagabadiisa waxa lagu sheegay si warar xoogaal ku helayaan laamaha ammaanku waxa dhalinyarada dabada ka hagaya cid dana gaar ah leh ciddaas hagaysana waanu ku raad joognaa degdegna waa loo soo qaban doonaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ciidamada booliska Soomaaliland ee laga hadlayay dhalinyarada kontonka ah ee ku labisan calanka Soomaaliya oo iyagoo sawirro ku galaya ciidamada booliska gobolka Awdal ay soo qabteen. maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho Hargeysa.